fursaddan nasiiyaan hadda waxaan ka yimid madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha isla jooga ayaga naftooda inaan warbixin ka siino xaaladda uu dalku ku sugan yahay ee dhinaca abaaraha sida ogtihiin hal sano iyo ziyaada waxaan ku jirnay arrimaha doorashada iyo murankooda iyo loolankoda intaba taas waxay keentay in laga mashquulo ama aan lala soconin xaaladda abaarta ee dalka uu ku sugan yahay runtii xaalad khatar ah oo aada halis u ku sugan yahay dalkeena 7 milyan iyo 100 oo qof oo Soomaali ah ayay abaaruhu saameeyeen gobol kasta oo Soomaaliya waa ka dhaceen ay ku jiraan xataa Soomaaliland gobolada ugu daran way kala daran yihiin gobolada siyaabo si kala duwan u kala daran yihiin qaarkood abaarta xoogooda ku dhacday oo dadka saameysay qaarkoodna waa lagu soo qaxay oo hoy waxay u noqdeen dadkii ka soo qaxay duruufaha abaaraha dadka waxaa soo qaxiyay abaarta kaliya ma aha amni darada waa soo qaxisay oo dhulka ay haystaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab dadkii inay beeraha abuurtaan oo u diiday qofka muwaadinka markuu beer u abuurto damco waxaa la kor saaraa abuurkana waa lacag falashadana waa lacag markuu goosanayana waa lacag taas ayaa waxay keentay in dadkii beerihii ay tabco waayaan xoolihiina hadduu neef gadayo canshuur aanan ka yarayn neefka qiimihiisa la saara taas waxa uu dheer in 4 xilli uu roobkii baaqday 2 gu iyo 2 deelna soo dhaafay deegta soo socoto October ana saadaasha cimilada hawada Ilaahay wuxuu keeno waa xaqiisa laakiin rajo badan kama jirto 7 milyan iyo 100 qof oo Soomaali ah ayaa maanta abaartu saameysay 5 milyan iyo 200 oo kamid ah ayaa halis ugu jira inay waxyeelayso abaartu waa laga yaabaa 2 milyan inay si toos ah u yeelin waxaa kaloo jira 220 iyo 230 iyo 250 kun oo macluul qarka u saaran markii macluul la yiraahdana macluusha waxa ku xiga waa dhimasho markii macluul la yiraahdo waxa ku xiga waa dhimasho 1 milyan iyo bar kamid ah dadkaas waa caruur waa ilmo yar waaye oo ay 400 kun oo kamid ah nafaqa darri hadda ay la tacaalayaan anigu markuu nafaqa darri soo gaarana wuxuu halis u yahay inuu dhinto maalmood waxaan tagay istaal banaadir waxaan ku soo arkay 200 oo canug oo ilaa burha kaba ilaa kaalkacay nafaqa darro oo keenay ee abaarta daraaddeed ay saameysay sariiraha isbitaalkana way buuxaan kuma filna kuwaas oo kuwii kari inay imaadaan waxaad imaajin karaysaa ama asawirataan kuwa aan imaan karin aan soo gaari karin isbitaalka aan soo gaari karin dadka ay abaartu hadda barakicisay waa 1 milyan ku dhawaad oo dadka abaartu barakicisay 700 kun oo kamid ah waxay hadda ku soo barakaceen magaalada Baydhabo oo kaliya Baydhabo waxay xarun u noqotay maadaama shabaabka dhulka koonfur galbeed dhulka badan yahay oo yahay xagga xukunka iyo haysashada dadkii inay ka soo qaxaan deegaamadoodii gobolada dhexe ilaa Puntland ilaa iyo Somaliland oo dadka xoolo-dhaqatada ay ku badnaayeen ama xoolaha dhoofiya abaarahaas ay u saameeyeen dadkii waxay ka soo tageen baadiyii waxay imaadeen magaalooyinka hay'adaha gargaarka lacag ugu qaybiya sidii kaarakii qaxootiga dadka hadda lacag ugu qaybiya inaan la socotiin oo malna arrintaas iyada ah mana wada gaarin dhammaantood waxyaalaha keenay waxaa kamid ah dabcan isbeddelka cimilada kowka ah oo inaan roob la helaynin ah oo ogtiin xamaraan joogaa xilli xagaaga la joogo waa sabra kartaa roobkii xagaaga ilaa haddeertan waa la la'yahay meelaha kalena waa sidaas 4 xilli roobka baaqday ka soo socdaan rajo badan mana sida aan sheegay waxay yaraaday dadkii inay wax abuurtaan oo abuurkii ama waxaa ka hor istaagay abaaraha roob la'aanta ka hor istaagtay ama al-shabaab ka hor istaagay dadkii marka beero u tabcadaan xoolihiina ma dhaqdaan waxaa kaloo batay dadka xataa labada shabeelle ku nool webiga oo maray iyo jubbooyinka fatahaadii hore ee webiga ayaa dadkii beerihii ka baabi'isay oo ka saameysay waxaa kaloo abaarta sababay in dadka siyaasad oo galay iyo doorasho dheer oo aan laga warqabin dadkii in wax gargaar ah loo fidiyo amni darrada waa kamid ayadana sidaan sheegnay caqabada ayaa jira oo dadka haddii la doono xataa in wax la gaarsiiyo caqabadaas waxaa kow ka inuu access jirin dadka inaan la gaari karinba dhulka xooggiisana waxaa ka taliya nimankii argagixisada ah oo lama gaari karo meelaha kalena xataa nafteeda ay dowladda ay joogaan iyo maamulada checkpointiyada askarta ay joogaan ayaa dadka dhib ku haya waxaa kaloo ayadana jira in wada shaqaynta ay dhibaato culus ay ka jirto dowladda dhexdeeda dowladda hay'ado kala duwan ay leedahay ama federal haday tahay ama dowlad goboleed haday tahay qof kastana mandate-kiisa inuu committed u jecel yahay oo asaga gacanta ku hayo awoodiisa markii dowladda taas waxay keentay marka inay caqabado badan ka imaadaan in gargaarkii dadkii la gaarsiiyo
waxay ii sheegeen qolo ka mid ah United Nations-ka in markab raashin ay leeyihiin oo dhowr bilood dekada ku xayiran yahay waa ogaan doonaa ayagu baan ka dhageystaa deertaan maamulka dekada ama authority-ga ama qodol maamulo waa dhageysan doonaa waxay ii sheegeen markabkaas inuu $1 milyan ugu kacay inta uu dekada ku xiran yahay damage wax la yiraahdo markii la jaaj gareynayo waxaan ku hubin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qolada dekada inay sax tahay waa ogtiin maalweed raashin ay qadar keento kontontana elaboorka garoonka diyaaradaha 2 bil ka badan oo ku xayiran ramadaanka ka hor la keenay taasna waxa keenaysa waxyaalo oo administrative ama maamul ama wada shaqeynta dhexdeeda ka taagan waaye dawladda Soomaaliya shirkadda garoonka diyaaradaha haysta waxay ku soo dalacday storage-ka ay ku hayso $300,000 ay ku soo dalacday oo dawladda laga rabaa marka caqabadahaasna waa caqabadaha wada shaqeynta iyo access-ka dawladda dhexdeeda ka jira iyo xiriir la'aanta wada shaqeynta oo dawlad goboleedyada oo mararka qaarkood ay siyaasadda ay saameyn ku leeyahay oo la kala saari waayay siyaasadda iyo humanitarian-ka inaan la kala bixi waayo taasna waa caqabaday ka mid tahay ayada nafteeda waxa kamid ah wasiirka maaliyadda waa maqlaaya inay sheegteen dadka gargaar ka shaqeeya canshuur dhaafka inuu process adag oo dheer oo gelayo oo 27 maalin markay ugu yaraato qaada doona inuu qaadanayo markii laga dhaafayo dadka gargaarka canshuurta laga dhaafayo processka looga dhaafayo habraaca la marayo wadada in waxa kale oo caqabadaha kamid ah dhaqaale la'aan ra'iisul wasaaraha markuu tagay maalin Geneva bil ka hor waxa shirka Geneva ujeedkiisa wuxuu ahaa geeska Afrika in loo aruuriyo abaarta ku dhufatay in gargaar loo aruuriyo gargaarka ay dalbadeen hay'adaha ka shaqeeya humanitarian-ka waa $1.4 bilyan ilaa hadda $280 milyan kaliya haystaan loomana soo jeedo hadeertaan oo adduunku waa ogtihiin waxa isku darsamay dhowr qodob Ukraine oo ka jirto dhibaato saa ogtihiin Ukraine iyo Ruushka waxay soo saaraan raashinka adduunka ugu badan oo qamadiga ah oo meesha uu ka yimaado waxa hadda bilaabatay dawladuhu inay kaydsadaan raashinkooda kaydka haystaan Hindiya wadamada ugu badan oo bariiska ka kaydsanno waxa Ukraine wadamada ugu badan oo qamadiga oo nooga yimaado wax kasto cunana waa ogtiin qamadiga ka sameeysan yihiin dawladdu walba marka raashinkeedii waa ceshad mar dhow waxa la arki doonaa xataa in raashinkii soo dhoofintiisii la heli waayo oo meel raashin laga keeno la waayo ayaa soo socota xilliyada soo dhow oo ah food crisis-ka and food security wax la yiraahdo waa ajanda weyn oo adduunka yaala waayo oo raashinkii la yahay waxa la socotaan midowga Afrika ninka madaxweynaha Senegal inuu u tagay Ruushka iyo Ukraine u tagay in la fasaxo qamadiga iyo raashinka dekadii ugu weynada laga dhoofinayna Ruushka haysta Ukraine waxay sameeyeen badiya miina geliyeen marka waa labada wadan oo laga keeni jiray qamadiga ugu badan adduunka oo ka yimaada ayay taas marka waa raashin la'aantana waa dhibaato weyn oo jirta iyo dhaqaale la'aan dadka traditional donors-ka ah waxay aad ugu dhiirigeliyeen in non traditional donors-ka ah dadka ayaga u yaqaanaan non traditional donors-ka ama carabta islaamka ah inaan wax ka raadsano madaxweynaha arintaas waa la wadaagay in uu wadamada Carbeed iyo wadamada islaamka ah oo u yabo tago oo u qeyl dhaamiyo sababtoo abaarta soo socota waa mid 40 sano aan la arakin soo socota waxaana keenaysan sheegay in 5 xilli roobaad aan roob lahaynin dadkiina ay dhibaato weyn runtii iyo dacdaro weyn ay haysato arintaas ayada waxa kaloo jira baraarug la'aan inay dadku ku baraarugsaneen in ay abaar jirtaba oo wali lagu jiro doorashadii iyo wixii doorashada ka dhashay wali inaan ku jiro taas daraadeed xildhibaanada waxaan ka codsanayaa saaxiibaday ah oo labada aqal iyo guddoonka intaba abaarta inay noo noqoto agenda number 1 haddii kale inaan sugno maaha dadku markay u dhimanayaan abaartii waa ogtiin 2011 waxaa ku dhintay 250,000 oo qof ku dhimatay oo Soomaali ah tan waxa la leeyahay waa ka xoog badan tahay 11 saasay tahayna 11 waxa yimid madaxweynaha Turkiga oo adduunka soo jeediyay indhaha adduunka soo jeediyay asagana runtii gacan weyn asagii dalkiisa ay ka geysteen in abaarta laga baxo oo maraakiibta raashinka ah waa iska dab iimaanaysa wadamada ay ka iimaanaysa hadda raashin adduun laga keenay lama hayo cid noo soo jeedo lama hayo Turkiga hadda ogtiin ayaga oo dhaqaale xagga dhaqaalaha iyo financial crisis oo haysta waa la socota cid marka hadeertaan degdeg noogu soo deejo ama dawladaha Yurub ha aadaan galbeedka ama Arab Islaam ahaatee ma jirtay hadda waxaan u baahanahay inaan qeyl dhaanta madaxda dalka dhan oo annaga iyo taasana keentay madaxweynaha inuu mas'uuliyadda runtii oo ii dhiibo aan inaan qeyl dhaantaas aan meel kasta aan gaarsiino adduunka oo kamid ah
ugu dambeyntii waxaan rabaa maadaama waqti uu kooban yahay maantana maalin miisaaniyadda laga hadlayo ay tahay in annaga dhammaanteen shakhsiyan aan xil saarno oo qaaraan aan iska goyno waxaan kaloo ka codsanayaa guddoonka labada aqal iyo guddigii hore doorashada hadday joogaan iyo wasaaradda maaliyadda lacagtii laga aruuriyey midowga musharaxiinta lacagtii laga aruuriyey ama ha aadaan heer baarlamaan ama heer maaragtay aqalka labada aqal u tartamayay in abaaraha laga siiyo qayb weyn in looga gooyo ayaan ka codsanay annagana waxaan codsanaynaa inaan ka qaaraano mishaarkeena si aan dadkeena u badbaadino waxaasoo dhanna waxaa ka sii muhiimsan in aan dadkeena waa ogtihiin waa ogaa xildhibaanada waa ila hadlaa intooda badan duruufaha deegaanadoodana waa ka warqabaan laakiin deegaanada dowlad goboleeday leeyihiin ayagaan kala shaqayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo idinkana waa in la shaqayn doonaa laakiin wacyigelinta waa inaan qayb ka nahay oo dhibaatada soo socota dadkeena caadi dhaqan iska jiro waxaa yidhaahdo aan iska caadaysanaa jirto wixiina waa nagu soo noqnoqdeen dabcan abaarahan waa iska soo noqnoqdaan adduunkana waa dhibsaday laakiin waxa dhibka markay dhacda keliya yaa inaan aragnaan u badannahay dhibka markay soo socoto waxaa laga yaabaa dadka inay iska sugaan inay imaato mana rabno dadkeena inay ayagoo kun ama boqol inay u dhintaan annagoo oo taagan inaan ma rabno arrintaas marka inaan ka wada qayb qaadano oo ay mudnaan noo noqoto oo nala ka dareemo oo runtii aan xataa isbiritkeeda ama ruuxdeeda inaan la nimaadno inaan dadkeena badbaadino waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum